بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد aad baad mahadsantahay waraysigan aad iga qaaday in kastoonan waraysiyada ku badnayn iyo tiifiyada iyo aan ku badnayn jecelahay uun wixii aan qaban kara inaan qabto horta marka hore ani yaroo kaftan aan ku horeysay Cabdirashiid layma oran jirin aabay wuxuu ii bixiyay Rashiid laakiin kabashada cilmiga kooban waa lagu kadeed maaba la yiri markaan dugsiga dhaxa ahayn buu arday igu yiri Rashiid waa ilaahay isagoo markaa de Rashiid iyo ka soo qaadanaya marka waa iska sifo oo waa khalad bay ahayd marka waa inaad la baxdaa buu Cabdirashiid anna iskuulkii baan u tagay waxaan ku iga bedela magacan Rashiid ii bixiya Cabdirashiid alxamdulillah waan ku soo caaramaalay laakiin markii aan tagay dibadaha ayuu dib badan ii keenay magaca labada noqday Cabdirashiid isagoo Rashiid uga salanaan lahayd marka horta taasi taabay ahayd dadkii hore ee yaqaanay waxay yaqaanaan Rashiid dadkii dambe isbaranay intii dugsiga dhaxa madda Iskandariyada ama jaamacadana Cabdirashiid waxa weeye Allah ma asaabirin ku dhashay magaalada Bowrama wax ku bartay tacliintiisii hoose tii dhaxe iyo sarana xamar ku qaatay Muqdisho amba baxay markaa kadib jaamacad dentalka oo markaas aan isweydiiyay markaan baxayay talow maxaa Soomaaliya maanta baahi jirta oo tagta ilaa wixii kale waa la wada sameeyay waxaan si arki waayay dhakhtar ilkaha runtii sababo badan baan markaa ku sameeyay dadku maxay u gali laayeen runtii waana loo baahan yahay oo meel aad loogu baahan yahay waxaan ogaaday markii aan bilaabay first year-ka jaamacadda Pakistan baan u baxay Punjab University baan ka bilaabay jaamacad aad u weyn weeyaan markaan tagay 82kii 82kii baan tagay 82kii waxa loo sameeyay 100 sano inay jirtay 100 sano marka waxa ka baxay dad badan oo India iyo madax ka ahaa sida Indira Gandhi iyo Jawaharlal Nehru iyo marka Pakistan iyo India mid bay ahaan jireen markii dambe 1940 bay kala baxeen laakiin jaamacadda waxa la sameeyay 1882 marka 100 sano loo dabaaldegay markaas sanadkaygii labaad halkaasaan markaa ka soo bilaabay jaamacaddii markaan jaamacaddii galay waxaan ogaaday sababta loo gali laayahay dhakhtarka ilkaha inay tahay midda u horeysa dhakhtarka kale wuxuu ka shaqeeyaa inta badan maskaxda in yaroo waxa ku jirta physically laakiin dhakhtarka ilkaha waxa ku jira physically iyo mentally iyo xodhan waa inaad ka wada shaqeysaa gacan iyo caynka marka dhakhtarka wuu gali karaa qof lugaha ama gacmaha naafa ka ah kuwa kale ama gacanta naafa ka ah masda laakiin ma gali karo dentalka way ku adkaanaysaa hadduu indhaha iyo gacmaha iyo lugaha iyo aynay waliba lugaha maadayda mid u fayowdaha iska sameyn karaa laakiin hadday labada lugood way shaqadii baa ku xidhan lugaha marka taasi waa taas baahayd halkaas aan ka bilaabay dabadeed markii aan dhamaystay waxaan ku soo noqday magaalada Muqdisho oo ka bilaabay isbitaalkii guud ee la oran jiray Digfaar imikana loo yaqaan Erdogan ayaan ka bilaabay halka inaan ka shaqeeyo ilaa iyo markii tsunami gu dhacay Soomaali kale tageysay la yidhi nin walba ku noqdo gurigiisii 1990kii halkaasaan joogay halkaasaan markaa ka soo qaxay waxaan imiday anagoo dhowr iyo 20 cisho soo soconay waxaan finally imiday Bowrama oo meeshii aan ku dhashay isbitaalka Bowrama ayaan markaa shaqo ka bilownay aniga Dr. Cabdiraxmaan Jaamacadi iyo dhakhaatiir kale oo joogtay oo ay ka mid yihiin Gahayr oo markaa iyagu iska dhakhaatiir junior ahaa iyo Axmed iyo Ismaaciil iyo dhamaan maanta waa rag waaweyn laakiin markaa dhalinyaro ah baan ka wada bilownay amba wax yarun baan ka weynaa wax badan kama weyneen marka halkaasaan shaqo ka qabanay mar baan ka yar noqday adigu Cabdiraxmaan isku duwaana maamulaha isbitaalka ka noqday kadibna waxaan u baxay magaalada Berbera oo xogaa yar shaqo ka helay dibna waxa igu dhacay dagaal sokeeye halka mar labaad haddana inaan qaxo ay noqoto Imaaraadka u qaxo marka wadamada Carabtan ka soo shaqeeyay oo ku maqnaa in dabadeedna reerkaygii oo jira xagga ay England ayaan markii dambe u wareegay xagga ay Ingiriiska alxamdulillah jaamacadna waan ku sameeyay laba caruurna way igu dhalatay baasaboorka ayaan ku wareegayna waan ka helay alxamdulillah nimco marka intaasi waxay ahayd intii aqoonteedii tacliintii sareena halkaasaan ku qaatay jaamacadda King's College London marka intaasaan ku soo koobay aqoonteedii iyo waxbarashadii halgankii aan galay iyo shaqooyinkii aan soo qabtay intaasi laakiin halka shaqooyinku kuma eke waxa weey mar labaad baan soo laba kaclay taasi waa tii markaan goostay inaan Ingiriiska iska fadhiyo oo sida rag saaxiibaday oo kala aan idhaahdo waxaan ku soo talin lahaa idaacadaha ka idhaahdo ama website-yada
waan yara diiday waxaan idhi waxaad qaban karayso qabo dhulkii tag halkanaan imiday hooyaday oo xanuunsanaysaan u yar imiday waxoogaa baan ka yar shaqshaqeeyey isbitaalka voluntary dabeedna waxaan arkay inay baahi badani taalla halkan anigoo baahidaas igu jirta haddana dee duruuftii reerkayga baan ku noqday adugu waxa ugu dambeyntii igu yimid England Professor Salaman iyo Dr. Saciid ayaga ayaana igu dhaliyay inaan imaado mar labaad ku soo noqdo dhulkii waxay igu yiraahdeen Booramo waxa ku nool ilaa 200 oo kurin ku dhow intaasi mataqaana de misail ku xanuuni karaan habeenkii dadkaasi way ku baahan yihiin kaalay adugu sidii baan ku imiday meel yar baan ka bilbilaabay markaan dhowr sano shaqeeyay waxaan ogaaday inay baahidan aniga iga weyntay ay u baahan tahay inaan dad kala sameeyo taasaa igu kaliftay inaan asaaso jaamacaddii ugu horreysay ee dental ah iyadoo jaamacadda Camuud ay jirto anna aan ku daro dental adii wax dental Soomaaliya oo dhan ma jirin marka sida ay Camuudba ugu horreysay medicalka Soomaaliya oo dhan ayay jaamacadda Camuud ee dentistry-guna ugu horreysay jaamacadda ilkaha inkastoo maanta qaar kale jiraan inta furtay iyo inta ka shaqeysay inta dhigtana ay u badan yihiin 80% ardadeedii alxamdulilaahi rabbil caalamiin meel walbana ay joogaan mishankaygu ugu weynaa wuxuu ahaa berigii ku idhi hooyaday baa igu tiri ma dadka ma sidan aad kaga tegi allah u naxariistay waxaan ku idhi dadka waan u soo noqon ama dad baan wax u bari ama anigaa soo noqon ilaahay labadiiba uu ila kulan siiyey waanan ka shaqeeyey dadna waan u sameeyey igaga dambeeya aniga waayo qofku cimri buu leeyahay dad badan baa igula yaabo igu yidhi maxaad u samaynaysaa jaamacadda shaqadan adiga iskale businesskaagii baa dhaawacaysa wallaahi waxaan idhaahdaa aniga gaal cad oona shahaadanayn baa wax soo baray gaal cad oona shahaadanayn aniguna dee dad muslima inaan u faa'iideeyay waxay ku jirtaa sadaqa tijaariyadii baan malaynayaa hadduu dee cilmi naafic yahay marka halkaasu manaan u ka haystaa inaan cilmi naafic sameeyey oo dadka maanta wax iyagiina shaqaysanayaan ummaddiina u shaqaynayaan dad i bedeli lahaana aan sameeyey alxamdulillah waxaan ahay dhiinkii weli waanahay waxaa kaloo iyadna la ii magacaabay dhowaan ku-xigeenka mataqaanaa kuuliyadda kuuliyadda caafimaadka ku-xigeenkiisa oo waxaan ku xigaa Dr. Saciid alxamdulillah waxaan marka hore intaa sheegin waxaan rabaa inaan mar laba u hambalayeeyo dhowaan oon xanuunsaday dadkii ii soo ma garanaysaa ay duceeyey intii maalgelisay intii ii ducaysay intii masaajidada iga ducaysay shacabkii iga duceeyey meel walba guda iyo dibaddaba aad baan ugu mahadnaqayaa marka hore jaamacadda Camuud oo horeeya guddoomiyuhu iyo guddoomiyaashiisa iyo madaxduba aad baan u mahadinayaa waxaan si ayagana u mahadinayaa jaamacadda caafimaadka Professor Walhad iyo horeeyay Ismaaciil iyo macallimiintooda dhammaan iyo dhiimamka kale ee jaamacadda kuuliyadda caafimaadka aad baan iyagana ugu mahadinayaa sidii fiicanayd waxaan u mahadinayaa arday nimanka dhakhaatiirta maanta ah laakiin ardadaydii ahaa ee dentalka ah ee kule mataqaanaa ee meel walba kule mataqaanaa klinigyada intii ka qayb qaadatay intaan ka qayb qaadanba waan mahad celinayaa intii ii soo dirtay dhambaalada ii ducaysay gebi waan wada mahad celinayay qofkaan ummadda uma mahadnaqinin ilaahayna uma mahadnaqaa la yidhaahdo marka aad baan ugu mahadnaqayaa dadkaasi waxaan aad ugu sii mahadnaqayaa ardaydaydii raggii abaabulka lahaa maxamed daahir iyo ninka la yidhaahdo cawad iyo cabdalla maxamed cali oo jooga Hargeysa dhammaantood waan oo leaders markaa ka ahaa aad baan ugu mahadnaqayaa intaa kadib haddaan kuu sheego jaamacadda waxaa ka baxay aduu imika intaa dhammaysatay ee shaqaysata qaybta ilkaha ilaa 150 way dhaafayaan imika sanadkii ugu dambeeyey intii ka baxday baan liiska iigu jirin oo runtii dhowr iyo soddon ahayd waayo waan ka maqnaa imika sanad iyo waxbaan ka maqnaa sanad iyo bar baan ka maqnaa laakiin waxa way si fiican ba u socotaa intii in leegna maanta way soo gashay annagoo xadidayna nambarka si aan tayada u fiicnayno waxa baranayno arday fiican oo tayo fiican inaan soo saarnaa rabnaa sidaa daraaddeed baanan qaadan karaynin mararka qaarkood boqolaal baa soo apply gareeya laakiin aan qaadanno nambar yar dad badanna nooga cadhoodaan laakiin dee taasi maaha inaan dadka diidayna waxaan doonaynaa qalabka yaraan haysana wax ku barayna inaan si fiican wax ugu barano iyo macallimiintii oo nagu yar runtii marka saasaan nagu kalifaysa marka aad bay u socotaa heer fiican bay maraysaa kuuliyadda guud ahaan aad bay u fiican tahay caafimaadku si fiican bayna u socotaa kolley way jiraan waxyaalo badan oo nagu mataqaanaa caqabado waayo dee dowladda ma gelisa dhaqaalo meelka caafimaad la yidhahdana uu sii ballaadhanaya oo ma ahaanayo on waxbaride research baaris baa ku jirta community oo loo shaqeeyaa ku jira waxyaalo fara badan baa ku jiraya waxaasoo dhanna waxay u baahan yihiin macallimiin ama experts bay u baahan yihiin dhaqaale u baahan yihiin marka kolley ma wada dabooli karayna laakiin dadaalkaygu ma yara wallaahi horta alxamdulillah in 30 sano ku dhowaan shaqaynaya imika anigu waxaan dee dhibaata ima soo marin kuma odhanayo laakiin wax weyn oon maanta xasuusto oo damage igu gaadhay anigana ma jiro patient and damage wadan gaadhsiiyo oo dacwad nala gashay ama meel xun nala gashayna ma jirto
waxaan isku dayaa inaan sidii ugu fiican aqoontayduna gaadhayso qalabkeedana aan haysta inaan qofka u daaweeyo marka aan intaa ma garanaysaa haddii igala fogaato oy igala durugsanaatana aan iska gudbiyaan jecelahay oon arko dee inuu xanuunkan afka ka hayaay uu yahay mid u baahan qalab fara badan iyo dhakhaatiir experta laakiin intii aan karayo si fiican baan uga soo qabtaa ulan taliyaa dadka marka shaqo walba way leedahay dhibaato oo dee ma jirayso laakiin midaan particular hadda kuu sheegi karaya ma jirto way jiraan dad iska juhalaaya oo dee iyagoo inta kugu yimid aqoon 30 sano haddana ku odhanaya iliga haddaad saarto waa ilig madoobaado dhammaan oo gundi ku jirto dee kuwa kale israacayaan war kuwa kale shaqo iskuma lehe qofna qof kale dusha kuma sita haddii qof la tooganaya walaalkiina mu dhimanaya uu raacaya ayaan ku idhahdaa ma ogtahay ilaa qof baa dembi galay baa la tooganaya ilig baan saaraynaa meel buu iska taagan yahay kii kale maxaa u keenaya haddii mid la saaro kuwa kalena way daba galaan bay waxyaalaha igu hadalka badan leedahay waxyaalaha weeyaan iyo ayeeydey baa sidaa oran jirtay iyo qofkii kugu yimid ma ogtahay waxay ahayd markii aan xamar joognay waxaana loo soo waqooyigana dagaaladii sokeeyay ay ka dhaceen ayaa waxaana lagu soo daray koox dhakhaatiir ah oo loo soo qaaday Hargeysa oo lagu yiri dhaawac yar baa isbitaalka yaallay soo daweeya iyadoo arintuna arintiisa ka duwaneed oo runtii isbitaalka iyo suuqaba meyd buuxay airportka markaa ka soo bixinay wada meyd baa yaallay runtii anaga shock bay nagu noqotay aniga dhakhtar waxa la socday Cabdirashiid Laylaamka South Africa la igu sheegay iyo dhakhtar Cabdirasaaq oo isbitaalka haysan jiray Banaadir iyaba hogaaminayna iyo nurse baan ahayn iyo kuwa aduu iyo Cabdirashiid Laylaam orthopedic South Africa jooga iyo hogaaminayna laakiin nurses iyo inagu jireen iyo qolooyin kale markii nala keenayay habeenkii baa nala soo qafaalay waxaa nala keenay airportka Xamar diyaarad baa nala saaray military ah oo kuraas lahayn dhexdeedana ay yaalaan masaalis fara badan iyo mataqaanaa waxyaalo fara badan oo nalagu yiri lugaha taabsiinina annagana suun baa dhexda nalaga xidhay wax la Hargeysa saasaan ku soo duulay markaan airportka nimiday aan aragnay madfac dhacaya iyo dhibaatada meesha taala ayaa waxa la yiri waxa la inii geynayaa nin meesha haystay markaa Morgan la oran jiray la inii geynayaa nin aweysgeedu la yiraahdo iyo dhowr nin oo kale aan lagu daray gaari yar waxa jeeda wata intaana lagu darin baynaan aw madaxiini marka waxa jiray ninka Cabdirashiid la yiraahdo jajabku nin yar oo iska caata oo tabar uu ahaa laakiin deegaa mataqaana iga siyaarsan anigu go'shaan sitay waan ka yar la fuweynaa marka waxay yiraahdeen warkan mas'uul ma ahaada mas'uul ay soo noqo soo baxo aniga bay qaabteen adiga bay guulaan sheeg dadka hogaamiyo nakeen halkii bay noogu geeyeen qol yar oo rasaas badan ay ku taalo oo jajabsan laakiin daartu aad qurux badnayd markii hore laakiin hadda damage badan malaha lagu dhex dagaalamay oo Morgan dhex fadhiyo wuxuu nagu yiri meesha dhaawac yar baa yaala madiina caawiya waxa inkaas oo kala ah waxaana lagu daray markii dambe inaan tagno hotelna la geeyo hotelkaas la kala doorto aan waxaan isbitaalka nageeya ku dhimanay ilaa meesha waa wada rasaas aniga iyo dhowr kale qaar kale ku dhago yiri hotel oo waliga aanu Hargeysa kuma qaylina nin Bob la oran jiro oo dhintay imika iyo kooka ayuu sitay iyo mahasha basbaaska yar ee lagu darsado cuntada iyo waxbuu sito Hargeysa ku soo qaylaya iyo waxa sulahay xamar ka soo qaatay markii aan tagnay hotelkii ay dalbadeen ayaa dhinac walba raasana naga furantay gaariga hoos gala ku meel kala gala ku meesha waan kala yaacay adugu markii dambe waxaan idhi meeshan iyadaaba aagay naga kaxeeyo hotelka waan naga kaxeeyay isbitaalkii waan naga geeyay ninkii basbaaska yar iyo kooka iyo sitay oo reebosa Allah naxariistay Bob baa la odhan jiray Bobiya imika uu dhintay Allah naxariistay ayaa wuxuu koomuba galayba isagoo 24 saac markuu nala joogay kadib diyaarad baa dib lagu qaaday ilaa Xamar ay waxan baa dhicib lahayn anigu waxaan mishankayga weyn imika yahay inta ii hadhay inaan jaamacad meesha bilaabay dentalka ah aan gacan saaro wixii iga baaqayaan aan sii fududeeyo ilaa master gaarsiiyo ardada haddii la yiraahdo ii fududeeyo caafimaadkana ii daayo mishankayga weyn waa intaas wax kale oo maanta alxamdulillaah anigu aan soo qaatay wixii tacliin ah dhakhaatiirtu way bateen laakiin waxa weeyaan waa inay tayada ilaaliyaan imka waxaan arkaya waxyaalaha iska hor imanaya qolooyin ilkaha mataqaanaa nadiifinaya oo ka tiraya wixii qadaya qolooyin khad marinaya intaba waan arkaya waa cajiib waxyaalo fara badan iyo marka adigu waxyaalo mistakes oo badan oo la sameynaya uu jiro taasna waxa keenaya hunguriga damaca inay iska daayaan oo si daacadnimo umada ugu shaqeeyaan yaan kula talinaya insha Allah